carruurteedu waxay imaamye ka yihiin masaajidda guud ee magaalada. dumarkeedu waxa ay xifdiyaan qur-aanka si la mida ragga, si aan boqol-jirayaashu uga rajabeelin inay xifdiyaan qur-aanka iyaga oo da'ah. magaalo ku taal Tunisia oo aan ka go'in ama aan laga joojin codka qur-aanka. isla marka aad gasho, waxa ugu horeeya ee dareenkaagu soo jiidan doono waa codadka carruurta iyo dadka waaweyn oo akhrinaya kitaabka Alle. boqolaal imaamyo iyo culimo ah ayaa ka soo baxay magaaladan yar ee go'doonka ah, Bani Khadaash, magaalo yar oo ku taala Tunisia, taa oo in badan iska caawisay gumaysigii Faransiiska, waxayna ku guulaysatay abaalmarino badan oo caalami ah dhanka qur-aanka. daaraha cidlada ah, meel u jirta 3 kiiloomitir magaalada Mudiniin kuna beegan koonfur bari dalka Tunisia, waxaa ku taalo magaalo yar oo lagu magacaabo Bani Khadaash, adiga oo u maraya waddo buuraley ah, dhagaxaan ah, aadna u cabsi badan, laguna magacaabo Kobra. magaaladu waxa ay leedahay daaro waaweyn oo qadiimi ah, aadna u adag, kuwa oo ka samaysan dhagaxaan asal ah iyo dhoobo. magaaladan waxay caan ku tahay iska caabinta iyo la dagaalanka gumaysigii Faransiiska, iyadoo ay ka dhaceen dagaalo aad u qaraar, waxaana hogaaminayay halgamaagii Misbaax binu Jarbuuc, ahna mid ka mid ah kuwii ugu caansanaa halgamayaashii soo maray dalka Tunisia. dadku halkan waxa ay inta badan ka shaqeeyaan xirfadaha gacanta, waxaana ugu caansan wax soo saarka suufka iyo rooga. magaalo xifdisan qur-aanka. qarniyo ka hor iyo inta aan la furinba madaaris, dadka degan halkan waxa ay ku kulmi jireen masaajidda iyo dhismayaasha si ay qur-aanka u xifdiyaan iyaga iyo carruurtooda. inkastoo ay soo martay magaaladu daruufo aad u adag, gaajo, sidoo kale dagaalo waaweyn, taasi kama reebin dadka halkan jooga inay xifdiyaan qur-aanka. waxa ayna noqotay caado ay iska dhaxlaan jiilba jiilka ka dambeeya oo aan nasuulin ilaa iyo hadda, taas oo sababtay in ay u baxdo magaca ah magaalada xaafidul qur-aanka. dadka halkan degan waxaa lagu qiyaasaa tiro ahaan in ka badan 28,000. waxaa ka soo baxay ama ka soo qalinjibiyey in ka badan 500 oo xufaad ah, kuwa oo xifdisan qowlka Eebe, waxaana ka mid ah carruur, rag iyo dumarba. dumarka xufaadda ah waxaa lagu qiyaasaa ku dhowaad 250 xufaad. xiisaha iyo hilowga aadka u weyn ay magaaladan u qabto xifdinta qur-aanka ayaa isku beddeshay tartan qoys ah. qoyska Abubakri waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah qoysaska ugu xifdisan qur-aanka, una degdega inay xifdisiyaan carruurtooda iyo dadkoodaba. magaaladu waxaa ka soo baxay in ka badan 400 oo imaam, kuwa oo maamula xaafadaha, degmooyinka iyo shaqooyinka u sareeya ee dalka Tunisia. waxaa ka mid ah Cabdulmajiid An-Najjaar oo ah gudoomiyaha midowga culimada muslimiinta ee dalka Tunisia. sidoo kale waxaa ka mid ah Sheekh Maxamed Al-Baaruudi oo ahaa gudoomiyihii hore ee jamciyadda qur-aanka kariimka ee dalka Tunisia. muhiimadda ugu weyn ee halkan oo ah inay xifdiyeen qur-aanka, bartayna maqaariidta qur-aanka, sidoo kale qiraa'aadka, taas ayaa ka dhigtay carruurta halkan ka yimaada inay noqdaan imaamyada masaajidda ugu waaweyn ee dalkan. sidaa daraaddeed magaaladu waxa ay heshay abaalmarino badan iyada oo ka soo hoysay tartano qur-aan ah, waxayna ku guulaysatay in ka badan 8 abaalmarinood oo caalami ah. xilligii la dagaalankii gumaysiga, magaaladu waxaa ka yaraaday iskoolada, sababtoo ah dadku waxa ay u jeesteen xifdinta qur-aanka si dhab ah, taas oo noqotay caado aanan raadkeeda go'in ilaa iyo hadda.